السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لايد ممانتا عشر كينو وحو كسابسن يحي المفردات وإريو لغة عربية هذا كهر وان سمين جرني إريو لغة عربية أو مواضيع كلا قدسن إن آن مربع موضوع سوق هذا أو إريو وحوي إريدا موضوع كسابسن aan macnahooda soo gudbino waa samayn jirnay kollayda qofkii channelka la socday waa uu ka warhayaa waaya mawduuca maanta aan markaa ka hadlaynaa waxa weeye almadiina oo ah magaalada ereyga koowaad ee aan kusoo qaadanaynaa wuxuu yahay madcamku waa maqaayada amaba hodheelka hadba sida aad u taqaanid dukaan waa dukaan ayaan inaga lafteenu dhahnaa wax kale oo aan u isticmaalno ma jirto ereyga saddexaad wuxuu yahay waa madaar waa gegida diyaaradaha amaba garoonka diyaaradaha ayuu noqonayaa waaya malcab waa garoon kubadeed amaba garoonka kubadda lagu dheelo kubadda lagu ciyaaro waaya waa garoonka banoonida lagu dheelo amaba lagu ciyaaro haddii aan si kale u dhigno miinaa waa deked ereyga lixaad wuxuu noqonayaa masnac oo ah warshadda waa warshadda wax soo saarta ayaa masnac la dhahaa ereyga toddobaad waxa weeye waa mustashfa oo ah cusbitaal amaba isbitaal hadba saad u taqaanid waa dhakhtarka weyn ayaa waxaa la dhahaa mustashfa ereyga siddeedaad wuxuu yahay saydaliya oo ah farmasiga saydaliya waa farmasiga waxaa u dhexeeya mustashfa iyo saydaliya waxa la dhaho ciyaada oo ah dhakhtar yar ciyaada waa dhakhtar yar oo qalabkiisiiyo wixiisi yaaliin ayaa waxaa la dhahaa ciyaada inkastoo aynan meesha ku sheegin farmasigana waa taqaaniin oo saydaliya ayaa la dhahaa ereyga sagaalaad wuxuu noqonayaa markasu shurda waa saldhigga booliska markasu shurda waa saldhigga booliska ashurda waa booliska markasna waa xarunta waaya ereyga tobanaad wuxuu noqonayaa xadiiqa oo ah beertu haddii ay yar tahay iyo haddii ay weyn tahayba xadiiqa ayaa la dhahaa haddii ay tahay mid xoolo waxaa lagu daraa xadiiqatulxayawaanaat waa beerta xayawaanada ayaa la dhahaa maktabulbariid waa xafiiska boostada maktab waa xafiis albariidna waa bariidkuna waa boostada muntazah waa meel loo dalxiis tago nambarka 13aad sayaaraad waa baabuurta amaba gawaadhida mufradkeedu wuxuu noqonayaa sayaara waa halka baabuur amaba halka gaari nambarka 14aad waa daayiraad waa duyuuradaha amaba diyaaradaha mufradkeedu wuxuu noqonayaa daa'ira waa halka diyaarad nambarka 15aad waa mabaani oo ah dhismayaasha mufradkeedu wuxuu noqonayaa mabna oo ah dhismaha nambarka 16aad waa shawaaric waa jidadka amaba waddooyinka mufradkeedu wuxuu noqonayaa shaaric oo ah halka jid amaba halka waddo nambarka 17aad waa asiqa waa luqluqyada mufradkeedu wuxuu noqonayaa zuqaaq waa luqluuq nambarka 18aad waa jusuur oo ah buundooyinka jusuur waa buundooyinka hal mar haddii aan kusoo laabano almadiina waa magaalada iyo wixii dhex yaalla ayaa cashar ku saabsan yahay waxyaabaha laga helo magaalada gudaheeda waaya ereyga koowaad waa madcam oo ah maqaayada ereyga labaad waa dukaan oo ah dukaanka waaya madcam sidaan soo sheegnayba dadka qaar waxay u yaqaaniin hodheel ayay dhahaan
kan la seexdana waxay u yaqaaniin hotel, kan cuntada laga cunana hodheel. maqaayadana waxay u yaqaaniin tan oo mataqaanaayey tan oo shaaha laga cabo bas oo keliya ayay u yaqaaniin maqaayad ama maqaaxi. waayo dukaan waa dukaanka, madcam waa gegida diyaaradaha ama garoonka diyaaradaha, malcab waa garoon kubadeed ama garoonka kubadda lagu ciyaaro, banoonida lagu dheelo, miinaa waa dekeda, masnac waa warshada, mustashfa waa isbitaalka ama waa dhakhtarka weyn, saydaliya waa farmasiga, waa meesha daawooyinka iyo waxaa lagu iibiyo, qof walba waa yaqaanaa farmasi. markasu shurda waa saldhigga booliska, xadiiqa waa beerta, maktabul bariid waa xafiiska boostada, muntazah waa meel loo dalxiis tago, sayaaraad waa baabuurta ama gawaadhida, daayiraad waa diyaaradaha, mabaani waa dhismayaasha, shawaaric waa jidadka amaba wadooyinka, asiqa waa luuqluuqyada, jusuur waa buundooyinka. casharkiina maanta intaas ayuu ku eegaya. casharka cashar lamid intaan kulmayno, sidaasi nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.